xog gaar ah ayaa sheegaysa in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxtooyada Soomaaliya kulan kula yeelan doono siyaasiyiinta iyo nabadoonnada saameynta ku leh beesha Habargadiir si looga hadlo doorashada ka dhici doonta Galmudug iyo shirweynaha wada tashiga. sarkaal ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxda dalka ay ka feejigan yihiin khalalaasa ka dhaca deegaanada Galmudug maadaama madaxweynaha xilkiisa sii dhamaanaya Xaaf uu abuuro xiisad dhibaato ka dhalan karta. madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre labaduba waxay ka soo jeedaan deegaanada Galmudug waxay xooraan si hoose la yeelanayaan odayaasha iyo siyaasiyiinta. kulanka madaxweynuhu uu sugu yeeray mas'uuliyiinta madaxtooyada Soomaaliya ayaa la filayaa inay go'aamo looga soo saaro habka loo qabanayo shirka dib u heshiisiinta deegaanada Galmudug iyo sidii odayaasha iyo siyaasiyiinta inta ka shaqayn lahaayeen in khalalaasa la'aan doorasho ka dhacda Dhuusamareeb. madaxda ugu sarreysa ee Ahlusunna ayaa la sheegay inay aqbaleen in madaxweyne Xaaf meesha ka baxo laguna qabto magaalada Dhuusamareeb shirar dib u heshiisiina iyo doorashada maamulkaasi waxaana Ahlusunna loo sameeyay ballanqaad badan. madaxweynaha xaalku ku xun yahay ee Xaaf ayaa hadda waxa uu furan laba wado kala ah inuu magaalada Dhuusamareeb kaga dhawaaqo inuu iscasilay iyo inuu u duulo magaalada Gaalkacyo halkaasna saldhig ka dhigto isagoo madaxweyne magacuyaal ah inta laga dooranayo madaxweyne kale. Xaaf ayaa magaalada Dhuusamareeb ku jooga raali ahaanshaha kooxda Ahlusunna waxaana Xaaf uu qabanaya waxa uuna Xaaf ku qasbanaan doonaa in wado kale uu raadsado haddii kooxdaasi si dhab ah dhabarka u xijiso. dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an in dhawaan la qabto doorashada maamulka Galmudug meeshana uu ka baxo madaxweynaha maamulkaasi Galmudug ee waqtigiisu ku dhamaaday khilaaf iyo wax qabad la'aan.